asxaabay iminka get method studentigayga waan samayn karaa, postna waan samayn karaa oo student cusub waan ku dari karaa. Laakiinse waxaan u baahanahay inaan sameeyo maxaa la yidhahdaa delete iyo waxa loo yaqaano put method. Okay. So iminka waxaan ku tijaabinaynaa postman-kaaga API-ga se loogu tijaabiyo waa inaad barataa mar walba maxaa la yidhahdaa backend-kaaga. Okay. Sababtoo waxaad u baahan tahay mar walba inaad la qabsato waxa backend engineer waxa la yidhaahdo. Okay. So each one marka waxaynu samaynaynaa iminka post waan samaysan karaa 200 weeyaan. Kadibna list student-gaygii baan heli karaa halkan list student-gayga waa kan. Haddaba waxaan doonayaa each one inaan update garayn karo ama aan delete garayn karo. So marka haddaad doonayso inaad wax update garayso ama aad delete garayso waa inaad unique identifier aad u samaysaa. Sababtoo put method iyo delete method wax kasta waa inay unique ahaadaan. Maaha kaliya marka ID baan each ku daranaa marka waxaan bedelayaa araygayga si uu araygani u qoran yahay list students-kaygani. So each one ID baan siinayaa. Let's say each one ID marka object baan ka dhigayaa. Each let's say ID koobaad one baan odhanayaa namekiisana waxaaba ka soo qaadaya Mohammed Bade. So markaas dhowr jeer aan kobiyeeyo. Let's say kani okay comma u dhaxaysiinana guys. Let's say comma sababtoo waxaan waa object gonna be comma hadda kan dambana waa comma. So each one way bedelanaa laba kani waa saddex kana waa afar. oo kaba soo qaad kan sahraba dheh kana sacdaba dheh kana waxaad tidhaahdaa khadarba dheh. So each one marka ID buu leeyahay 1 2 3 4 unique ID buu leeyahay. So haddaan iminka rest JSON aan students-kayga still u diro oo student added okay I think Muha still wuu ku daray laakiin laazim axi Muha ayuu ku daray laakiin ID kumuu daran haddana si post method-keeni baa shaqaynaya laakiinse get method baan u baahanahay. I think get method oo way bedelanaa guys. List student-kayga waa kan. Only each ID aan samaynay wuxuu leeyahay unique ID number. Okay laakiin Muha waa kan iminka post baan samaynay sababtoo post buu ku taagnaa. List student-ga haddaba haddaad iminka waxaad bedeli kartaa route-kaagan guys. Halkan saanad u khalkhalin tanaad duplicate baad ka samaynaysaa. Waxaad odhanaysaa create students. Laga yaabaa saasoo kale anigu badanaa u samaystaa. It's gonna be a create student. Create student. Okay xaggana create student oo isticmaalanaa sababtoo kana bal xaggana waxaan fetch garaynaa students-keena. Okay copy gonna be student kan waa post method. So as well as waxaan u baahanahay duplicate oo update baan u baahanahay. Update student. Saa markaad sameeyo okay delete baan u baahanahay haddaba. Okay let's say duplicate baan samaynayaa. Kadibna waxaan soo qaadanayaa magacun baan xaggan bedelayaa ee collection-ka. Delete student. Okay. So kana waa delete student. API student. So route-ku isbedelayaa guys. Kan route-kiisu isbedelayaa. Sababtoo each ID baan u baahanahay kana bottom method buu noqonayaa goordhow. So haddaba waxaan u baahanahay markaan ID-ga samaynayo post-ka markaan samaynayo laazim marka waa inaan ID-gana raaciyaa. So kan laftiisu isbedelayaa. Let's say request.body waan u baahanahay sababtoo waa inaan helaa marka hore field-ka aan samaynayo. Kana status-ka 4 of 100 baan idhi. Kadibna name is required baan odhanayaa. Laazim marka waxaan u baahanahay ID. Cons kadibna waxaad soo qaadanaysaa ID-ga. Okay variable ID la yidhaha baan soo qaatay. Sababtoo each one ID baan doonaya inaan raaciyo. So marka hore student-ka ayaa waxaan doonayaa inaan eego horta length-kooda. Let's say students.length. Okay. Haddaad doonto everything waad soo qaadan kartaa oo waxaad odhan kartaa question mark baan odhan karaa. Let's say hadda waad structure ku samayn kartaa. Let's say students.map baan leeyahay. .map. So each one macnaheedu each student.id
+1 baan leeyahay +1 okay elas haddii kale halka bilow baan leeyahay so laazim kan waa inaan raab gareeyaa oo laazim inaan xisaab ka dhigaa so maths dot baan soo qaadanaya laakiin maths loo yaqaano javascript maths bay leedahay sababta wixii markaad doonayso inaad numbers iyo uu wixii toggle sameeyo max kadibna waxaan odhanayaa kan bracketkan ku xidhaya say bracketkan ku wada xidhaya gonna be max okay hadda waxaan soo qaadanayaa let's say I think s.id kani xaggan aan xidhanaa sababtoo dhe bracketka waa inaan xagga ku xidhnaa it's gonna be bracketka xaggan aan ku xidhayaa so studentki blow1 baan ka soo qaadaya else haddii kale waxaan ku celinayaa it's gonna be okay see hadda kani waa student each student idgiisa ayaan +1 ku kordhinayaa macnihii 1 2 3 4 baan haysanay 5 kolba kaan sameeyo +1 buu ku darayaa okay so isaga automatically toggle garaynaya kadibna wuxuu ku darayaa each one student haddii kale hal baan ka soo qaaday okay so ternary operator baa loo yaqaanaa waxan so marka studentka ayaan doonaya inaan ku bush gareeyo namekaan ku bush garaynayo keliyaata so cons marka studentka oo arkaan samaynayo each student aan doonayaa let's say each student aan samaynayo waxaan ka soo qaadayaa idgiisa iyo namekiisaan ku bush garaynayaa so students baan odhanayaa dot push halkan student baan leeyahay studentkan create magaciisa iyo idga igu bush garee oo laazim markaa haddaad doonayso just keliya studentkan keliya sameeyeyba hel iminka marka create student baan u imi bodygaan tegayaa bodyga markaa rowgaan tegayaa jason haddaad doonto waxaad tegi kartaa let's say headerskan waad tegi karaysaa oo titleka halkan waad ku samaysan kartaa okay title waad samayn kartaa gonna be valuegana halkan waad samaysan kartaa oo waxaad odhan kartaa headers bodygaan u jeedaa okay headerska waa saxanahay bodyga waa markaad jason formaad u samayn title let's say cilmi ba dhe aytan cilmi ma haysano marka boss ayaan san odhanayaa oo studentkan hadda sameeye waa inaan helo title baan idhi I think name baan u baahanahay titleka waxaan qortay waa hay sababtoo dhan name bayn haysanay runtii inaan name valuegeena bodygeena name baa ku xidhan marka laazim waa inaan cilmi haysto marka applicationkeena uu rangaraysan yahay marka hore aan clear yidhaahdo terminalkayga guys much error baan arkay okay san baan idhi undefined buu yidhi request to body undefined buu ka dhigay why okay aboutkeena kan comment baan iska saarayaa boardkeena inuu bato ma rabo okay see so I think jasonkeena ku noqonanaa headerskan iska daynanaa marka waxaan form data la isticmaalaya guys waa kan halka form datadaan doonaya headerskan yaxani waa good authorizationka anaa qalday so marka name halkan waa inaan haystaa gonna be cilmi si marka cilmi markaan haysto waayo bodyga goordhow markaad bodyga clientkii oo kale formka ku bash garaynayso waa in datadii xogtii ku bash garaynayso keliya hata imika markaan san idhaahdo si hadda san baan idhi still nothing okay boss is gonna be student languagekii waan hayaa okay say name cilmi baan idhi just click baan idhi not structure of name
ay aanu u structure garaynayn. Okay, something baa qaldan guys. Okay, let's say if there is name record body, each one name keedu one haystaa, or it's gonna be Ahmed Sahara ID, or okay, let's say JSON format baan ka dhigay. JSON format. Dentist, okay, name Elmi san baan idhi hada. Okay, see hadda student added baan idhi. See marka student added, marka student kan ku darina waa kan. So marka each one waan haystaa, oo let's say hadda uu create gareeyay laka list studentskaygaan helo. Get baan leeyahay. Case Ahmed Sahra Saada Khadar, create student, Atin Elmi, then 5. Again baa ku daraya. Okay, list student get baan odhanay. So let's say hadda kii shanaad waan haysanaa, waa kaa cilmi uu kusoo daray markiisu safe baan nidhi. Errorkii baa marka hore inagu taagnaa. So hadda waan ku dari karayaa ID-gina waan ku dari karayaa xay ID 5 sababtoo dheh each student kii buu eegaya ID-giisa kadibna +1 baan nidhi. Elas haddii kale 1 baan ka soo qaadaya. 1 ayaan ka bilaabayaa. oo saa u yara fahanay studentkaad marka hore eegaysaa totalka ugu jira, kadibna destructure baad ku samaynaysaa macnihii studentskaaga hore dhaatadii horead haysatay, kadibna map baan samaynayaa macnihii each student baan map garaynayaa oo garaynayaa macnihii looping baan ku samaynayaa, waa loop gareeyey each studentka ayaan student ID-giisa un baan kusii darayaa studentskan arrayga another ID oo whatever studentska arrayga igu jira dhaatada marka hore ayun baan +1 odhanaya. Haddii kale hadduu empty array yahay +1 baan odhanayaa. Okay, so marka intaa haysto boss waan samayn karaa. Let's say this can okay, create weeyaan. Kani comment samee create weeyaan. Okay, oo hadda kan waa fold garaynayaa, iska yara fold garee markaad halku ka bilowmo functionka ama waxaad samaynayso callback ayaad ka eegaysaa. Haddana eeg update baan samaynaynaa. Let's say update commentiga update put method waxa loo yaqaano put dhaatadii kalaad place garaynaysaa fiilkii baan doonaynaa inaynu update garayno each studentka magaciisa. So app applicationkaygii baan soo qaadanayaa. Let's say put method baan samaynayaa, waa put method sababtoo dhan waa imika waxbaan update garaynaynaa. Let's say students sababtoo dhan each one unique ID baa haystaan soo maaha. Students oo ID-ga markaad doonayso inaad ku darsato homa ID baad odhanaysaa. Okay, goodho sidaad goodho ID-ga studentka u soo qaadato. Okay, so request iyo response baan soo qaatay callbackaygi. oo marka each studentska maxaan doonayaa ID buu leeyahay, unique ID number. ID waxaa markaad doonayso inaad access garayso data maxaa la yidhaha Node.js-kaaga any ID field oo daatadaada ku jirta request dot waxaa la isticmaalaa promise wax la yidhaha ID. Okay, oo marka imika haddaad doonto waxaad ku raab garaynaysaa number baad ka dhigaysaa. Gonna be let's have a number baan ka dhigayaa. Let's say number ku raab garee sababtoo dheh each one ID-gu number weeyaan. Number baan ka dhigayaa. Markaad doonayso Node.js-ka daatadaada kugu jirta ID-ga aad doonayso access garayso request dot promise baa la yidhaha parameterka qofka unique identifier-ka aad doonayso inaad hesho ID-giisa telin. Waad structure garaynaysaa haddaad doonto san baad odhan kartaa request dot promise waa same imika hore u qornayd iyo sidan haddaad aragto waa same mar walba. Balse ID-gii baan haysanaa cons kadibna name baan soo qaadanayaa whatever field-ka request dot party-gaysaan doonaya inaan soo qaado. Okay, sababtoo dhan halkaan update garaynaa waa name-ka. Let's say ID-giisa
ayaynu helaynaa. Let's have ID egasba ka soo qaad sababtoo dhan magacaan bedelanaa. Already ID waan haysanaa. So let's say studentska marka hore ayaa waxaan eegayaa each arraygay ku jiraan index wax la yidhaha baa jira. Find indexkiisaan eegaya. Let's say find index wax la yidhaha baa jira. Method find index la yidhaha baa jira. So student each studentka student oo ID-giisa wuxuu la mid yahay whatever ID-gaan haystay. Sababtoo dhan request promise-kayga ID-gaan ka helayaa. Okay, so intaa markaad haysato let's say if statement ba isticmaalnaa ID-giisa ayaynu eeganaa. Hadaanu jirin baan leeyahay -1. Okay, studentkaasi hadaanu jirin -1 baa la isticmaalaa guys. Okay, waxaa markaa Node.js-kii waxaa la isticmaalaa. Let's say return baan odhanaya. Message baan soo odhanayaa. JSON baa dheh ama status code marka hore soo qaad. Say error oo 4 of waxaan soo qaadanayaa status kadibna waxaan odhanayaa let's say 404 kadibna JSON kadibna waxaan odhanayaa student not found. Hadhow waan ku barayaa insha Allah sida errorkan si fiican loo kajgareeyo datadaada loo kajgareeyo. Okay, oo markaa waxaan soo qaatay not found baan idhi studentkaasi hadaanu jirin ID-giisa aan waayo not found baan soo qaadanaya. Else haddii kale haddaad doonto namekana same as sidii hore if there is no name keliyaata waxaad soo qaadan kartaa. Error baan kusoo tuuray. Return gonna be return baan idhi let's say statuska marka hore 404 ba ka dhig JSON waxaad odhan kartaa name is quiet. Intaa markaan haysto waxaan soo odhanayaa validation baa la yidhaha waxaan guys. Backendkaaga front endkaaga mar walbuu display gareynaya saa notificationka ugu. Intaa haddaan haysto keliyaata waxaan u baahanahay iminka arrayga studentskii baan soo qaadanaya kadibna arraygoodaan eegayaa. So each ID-ga aan doonayo aan helay student ID-giisa aan helay ayuun baan eegayaa marka hore. Kaasaan update gareynayaa whatever ID-ga iyo let's say namekiisaan soo qaadanayaa. Okay, so intaa markaan haysto waan update gareeyay already JSON baan odhanayaa kadibna let's say students kadibna waxaan soo qaatay let's have IDX anigoo userka aan update gareeyay ID-giisa. Imanka haddaan so put method baan haysanaa soo maaha. waxaan samaynoo keliyaata request promise bayn helnay ID-ga each studentska. Okay, waa Node.js-ka markaad doonayso inaad collectionka ka dhex baadho database-kaaga ka search garayso ID unique ID request promise wax la yidhaha baa la isticmaala. Front endka laftiisa markaad doonayso inaad access garayso routes isagana sida loo isticmaalayo waxaasad insha Allah waan isla eegi doonaa. laakiinse Node.js-ka request promise ayaynu isticmaalnaa markaad collectionkaaga database-kaaga iminka database-keena arraygeenana inoo ah inaga database inoo ah. Saa darteed ID baa inoo ah unique ID number. ID-geenu ka helanaa. So each student markaan helo ID-giisa okay haddaanu jirin not found baan soo qorayaa. Haddii aan ka tago nameka anigoon waxba ku qorin datadayda fields-ka error yar baan soo celinayaa. Else haddii kale waxaan update gareynayaa qofka ID-gii. So let's say put method-kaygu waa kan. So laazim markaa students so each ID baan soo qaadanaya. Let's say student 2 baan soo qaatay. Iminka student 2-gayga waxaa ku jira Sahraa ku jirta soo maaha. So put method weeye. So markaa bodygaan tagayaa. Bodygana waxaan soo qaatay row JSON format baan ka dhigayaa. Kadibna waxaan odhanayaa nameka waxaan ka dhigayaa let's say Sahre ahayd soo maaha. let's say Suleekha ba ka dhig. Suleekha. So studentka labaad weeyaan markaad access garaynayso students ID ninka labaad baan ku baas gareeyay. Put method baan ka dhigay. Waa update macnaheedu waa update gareynayaa guys. So iminka send baan idhi okay cannot
structure value buu yidhi cannot conform object primitive at number. Okay, something is off, guys. oo markaa waxaan soo qaatay inabi let's say id baan halka ka dhigayaa. Let's say id structure bal aan ka dayno request id ba. Okay, safe baan odhanayaa. Let's say terminalkayga clear aan idhaahdo. Okay, something is off, guys. Maxaan sameeyey? Okay, hadda x waa kan caadi, wakaa koorkayga caadiga waa kan. oo id-ga ayaa number caadiga ka dhigayaa. So safe baan idhi. Let's say terminalkayga npm star baan odhanayaa. So star markaan idhaahdo hadda baleegsi student 2 this is studentskaygii studentka labaad waxaan haystaa Zahra. oo update student baan idhi waa put method. lazim halkana waa inay put method noqotaa. ina be put method id-giina waan haystaa. Okay, so marka waxaan odhanayaa just send baan idhi. Okay, id2 Suleekha buu noqday maaragta 200 baan haystaa. macnihii request successful buu leeyahay. The server responded as required. waad aragtaa 200 macni waa okay. So list studentkayga haddaan display let's say list studentkayga si id-geeni ka labaad wuu isbedelay Suleekhuu noqday. marka horena Sahrayn haysan. So same as haddaad doonayso update inaad let's say ka saddexaad oo kale update garayso. maxaan haysanaa id-ga saddexaad saacadayn haysanaa. let's say suhuurba ka dhig. halkan waxaan ka dhigayaa let's say I will have suhuur ba dhe. oh here baan u jeedaa. Suleekhaan haysanaa let's say suhuurba ka dhig. suhuur buu noqday. So imika saacadaad joogta laazim waa inay suhuur noqoto. si id-geeni wuu isbedel. So same as sidaas oo kale ayaa waxaan samaynayaa delete method. ayer unique id baan haysanaa. sababtoo dhe student delete-kana waxaa doonaya inaan sameeyo id-giisa. each one is gonna be id buu qaadanayaa. So id-ga hadduu doono ka labaad baan doonaya delete gareeyo, ka saddexaad baan doonaya in delete. saasoo kale delete method imika kana aan fool gareeyo. put method delete baan u baahanahay. ani remove weeyaan. remove student baan odhanayaa let's say